السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أن جعلها جنالكيga ku xiran Fatxi official waan salaamay salaan kal iyo laab ka soo godayaan salaamay meel walba aad joogtiin Soomaali dhammaan waan salaamay salaan kadib walaalahay qaaliga ah maanta meesha maxaa isu fadhiisiyay maxaan iga filanaysiin wax kale ma ahan walaalahay qaaliga ah qiso aad iyo aad u xanuun badan ayaa gabar walaashay oo Soomaaliyeed iga codsatay in aan maanta baraha bulshada ka sii daayo oo waxay tiri gabadhaas walaashay qisada sida ay u dhacday iyo sida reeylaadka magaceeba inaan meeshan ka sheega ma rabi waa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaato iyo xanuun hayo waa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaato loo geystay walaalahay qaaliga aan jeclahay hooyada Soomaaliyeed arinta ku dhacday iyo qisadii ku dhacday ma aniga oo ah Fatxi official ayay ila wadaagtay waxaana iga codsatay gabadhaas in aan magaceeda meesha ka sheegin ninkaas magaciisa aan sheegin laakiin hadduu adduun weynaha meel walba uu ka joogo uu i daawanayo wadanka uu joogana waan sheegi doonaa qisada say u dhacdana waan ka hadli doonaa walaalahay Soomaaliyeed aan jeclahay waxaan leeyahay bal ila daawada walaalahay qisadaas aniga Fatxi ahaan waan ka danqaday aad ayaan u xanuunsaday because aniga hooyo ayaan ahay hooyo dhibaato loo geysanayo uma adkeysan kari mana rabi hooyo kasta oo Soomaaliyeed in dhibaato loo geysto aabbo kasta oo Soomaaliyeed inuu hooyo Soomaaliyeed dhibaato u geysto waa laga fiican yahay waan isdhalnay waan wada dhalanay waana ilmana waan isku dhalnay laakiin waxaa fiican qofka walaalka ah in aad qiyaanin oo aad dhabarka ka dooganin oo aad si lillaahi ilaahi dartiis adoo alla ka cabsi sameynaysid aad qofka walaalka wuxuu jahilka ka yahay in aad kula dhaqmanin in aad qiyaanin dib malahan hadda taa way dhacday laakiin walaalahay Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin hooyo Soomaaliyeed ayaa waxay tiri nin baan isqabna ayay tiri way kala tageen markay kala tageen muxuu ku sameeyay Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin qisadan qofkii arka walaalahay aan jeclahay si sheer garay ilaahay dartiisna ku sheer garay gabadhan Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed maxaa lagu sameeyay wax kale ma ahan hooyada Soomaaliyeed gabar ayay dhashay ninkaas u dhashay gabadhi ninkan wuxuu ka imaaday dadka dibadaha ka imaaday qurbooyinka ka imaaday qofka bilaalinka ka imaado dibadda hooyo kasta Soomaaliyeed dibadda way jirtaa walaal kasta Soomaaliyeed dibadda way ku nool yihiin laakiin ma ahan qaab dar inaa qofka walaalka kula dhaqantid wuxuu dhahay gabadhaada aniga adiga waan iska dhalnay bari hooyo Soomaaliyeed dhibaato ku jirta ayay ahayd wuxuu dhahay bari gabadhan adiga ayay ku anfacaysaa way ku soo dacweynaysaa maxaa iyadana qalbigeeda ku jira buufis muxuu uga faa'iideystay Janiskaas wax kale ma ahan hooyo Soomaaliyeed in la dhibaateeyo ma xaq bay u leedahay waa maya waxaan leeyahay walaalow ilaahay dartiis gabadhaas qisada aad ku samaysay waan ka hadlayaa ilaahay dartiis meel walba aad joogtid ilaahay dartiis cunugtaas hooyadeed iyo ayada aad kala goysay xariirkooda ilaahay dartiis dib ugu soo celi wax kale ma ahan asxaabay wuxuu ku sameeyay cunugtii ayuu hooyadeed ka qaaday wuxuu dhahay waan u soo dacwoonayaa ee safaaradda gay ma taqaano qoraalka sida loo akhriyo waraaqada ayaa loo keenay meel walba oo warqadaas waxaa ku qornayd inay forever ay hooyadaas cunugteeda ay helaynin ayna arki doonin uu ka saxiixda meel walba marka maxaa dhacay asxaabay wax kale ma dhicin hooyada Soomaaliyeed cunugteeda uu ka kaxaystay haaba kaxaysto markuu wadanka Sweden ayuu geeyay markuu wadanka uu geeyay muxuu ku sameeyay wax kale kamuu sameeynin wuu qaaday hooyadaas wadanka awrabu gabadha ay dhashay uu geystay wuuba geystay hooyada waay uu khalad oo la dhaqmanayo inna lillaah bilaalinimada ma dhamaatay adduunka ma ka dhamaatay hooyo Soomaaliyeed in sida khaldan loola dhaqmado xaq ilaahay Soomaali weynay waa maya aniga maanta Fatxi ahaan maanta waxaan meeshan u soo fadhiistay aan uga hadlayaa qisadaas xanuun ka badan ila dhageysta asxaabay gabadhii wuu kaxeeyay Sweden wadanka Sweden ayuu geeyay gaar ahaan wadanka gobolka Yafli ayuu geystay haaba geysta ma xumo laakiin muxuu ku sameeyay cunugtii iyo hooyadeed meel walba ayuu hooyadeed blog ka saaray Facebook ha dhihin WhatsApp ha dhihin Instagram ha dhihin meel walba ay xiriir ay ka heli lahaayeen ayuu ka saaray meel walba ay xiriir ka heli lahaayeen ayuu blog ka saaray haaba ka saaray muxuu sameeyay hooyo waaye
hooyo kasta ubadkeeda way u baahan tahay inay codkeeda maqasho way u baahan tahay ma ahan waxa nin rag ah waa dumar waa ilmo yar waa sabin maanta waa 13 jir laakiin waa cunug yar qof walba oo hooyo Soomaaliyeed way dareemi kartaa gabadheeda haday ka maqanta xanuunka ay dareemaysan qof walba uu og yahay maanta aniga Fatxiyaan haday igu dhici lahayd xataa arintaas uma dul qaadan lahayn shook ayaan ka qaadi lahaa laakiin Ilaahay muxuu siiyay iimaan muxuu siiyay diin oo aad u qurux badan oo nadiif ah ayuu Ilaahayna siiyay diinta darteed ayay gabadhaas isku celisay hooyo kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa videogaas ama walaal kasta oo Soomaaliyeed haduu daawado please and please share garay ninka wuxuu ku nool yahay wadanka Sweden gaar ahaan gobolka la yiraahdo Yafli please walaal hadii aad Ilaahay ka cabsanaysid oo jirkaaga jir naxaya uu yahay please and please walaalkay waxaan ka codsanayaa hooyadaas Soomaaliyeed oo aad gabadha ka dhashay oo aad gabadha ayadu weyniga dhaxaysa codkeeda ayay u ooman tahay codkeeda ayay u baahan tahay argeeda ayay u baahan tahay adduunka horumar ayaa la gaaray wax walba qofka haday kala fogyiin xataa way is arki karaan walaal macaan please and please Ilaahay ayaan kugu dhaarshay hooyada gabadheeda yar aad ka haysatid oo mar walba aad blog ka saarta aad ilmahaas yar aad ugu cagajuglaysay in uu aad siinaysid gaaladaas hadii ay hooyadeed ay raadiso please walaal macaan waxaan ka codsanayaa gaar ahaan ummadda Soomaalida Sweden ku nool waxaan ka codsanayaa hooyo kasta oo Sweden joogto oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay gabadhaas yar ay hooyada dib ugu soo celin haday hada u soo celin karin codkeeda iyo maqalkeeda ama muuqeeda ay tusaan please walaal waxa ay ku nooshahay gabadhaas yar magaalada Yafli loo yaqaan gobolka Yafli loo yaqaan ay ku nooshahay please hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo Sweden ku nool please and please walaalahay waxaan iga codsanayaa in hooyadaas gabadheeda yar aad isma qashiisiin hadaa ma rabto in ay ka qaabato laakiin waxay u baahan tahay waa codkeeda hooyo kasta way dareemi kartaa ubadkeeda way jeceshahay hooyo ubadkeeda nacaysa ma jirto waxaan ka codsanayaa walaalahay Soomaaliyeed inay qayaanin ragga intay gabdhaha Soomaaliyeed u qoslaan ay dhahaan wax baan ku qabanaya ana qowda maqashii waxnaha u qabanin walaga fiican yahay raggeena Soomaaliyeed waan wada dhalanay walaal waan iskuursanaa isku dhiig waan isku dhacaan waan laakiin waxaan iga codsanayaa gabdhaha Soomaaliyeed ku dheelaysin Georgia Ilaahay dartiisna u noqda Ilaahay dartiisna gabar walba weynela dhalatay waana dhasheen weynina dhashay laakiin xumaanta gabdhaha la damacsantiin ka daaya please walaalkay hadaa aad codkayga aragtid aana daawatid Ilaahay waxaan kugu dhaarshay Ilaahay aan kugu dhaarshay mar labaad mar saddexaadna aan ku leeyahay hooyadaas maqashii gabadheeda yar codkeeda xataa adduunka horumar ayaa la gaaray video call ayaad ka soo wici kartaa hal mar aad tustay ama weegi laba mar aad gabadhaas hooyada wada hadashiisid xumaan iyo dhibaato maxaad u la maraysaa please cunugtaas yarna ha u cagajugleelin waa gabar yar waa ubad yar hada soo baxay waa ubax yar oo adiga iyada Ilaahay dhaxdiina ka awuro oo hadiyad Ilaahay siiyay please walaalaha Soomaalida Sweden ku nool waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaalida Sweden ku nool oo hooyooyinka ama aabooyinka Sweden ku nool waxaan ka codsanayaa ninkaas wuxuu ku nool yahay magaalada la yiraahdo Yafli lambarka aniga la iga helana gabadhaas iyo aniga isku mid ayaan nahnaa waa gabar walaashay Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed gabadheeda ayay u oomanta ayay u dhiban tahay please walaalahay lambarkayga ayaa shaashada soo saari doona please and please hooyadaas hala la soo xiriirsiyo gabadheeda please and please Ilaahay ka cabsada waxaan leeyahay walaalahayga Soomaalida Sweden ku nool please garab nasiya gabadhaas hooyadeed isla xiriiriya ama Ilaahay u soo bariya inuu Ilaahay gabadheeda dib ugu soo celiyo nin walba oo Soomaali ama qof muslim oo dhiig iyo naxariis ku jirto Ilaahay waxa uga baridin gabadhaas yar xaq inuu Ilaahay ugu soo celiyo hooyadeed xaq Ilaahayna ugu soo celiyo asagana inuu Ilaahay xaq tuso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليد وحاني الله فيديوغاس نين والبا oo daawado please and please hala si share gareeyo meel walba adduunka ka joogtiin waxaan leeyahay hooyinka lagu dheelin
hooyo walba oo Soomaaliyeed madaxeeda kor ha jiro. Assalaamu calaykum ورحمة